filimkana maanta waxa uu ku bilaabmaya George iyo familkiisa kuwaas oo soo wareegay guri kale kadib markii ay iska bixin waayeen lacagta ijaarka ayagana waxay u soo wareegeen gurigooda cusub waxa uu muuqday mid cariisha sidoo kale guriga uu leeyahay koronto iyo biyo habeenkii koowaad George iyo hooyadii waxay kala jarteen hal xabo rooti ah markii ay saxdeen kadib George hooyadii waxay u sheegtay in ay bari geyn doonto iskuul sidoo kale waxay u sheegtay in aanu qofna la dagaalamin maadaama George yahay qof gacan fudud oo markasta dagaal badan maalinkii xigay George waxa uu yimaaday iskuulka qof kastana waxa uu eegay George maadaama uu wata kabadooga iyo dhar duug oo qadiimi ah ardaydana dhammaantood waa kuwa ku caayay midabkiisa madow laakiin George dhaguma dhigan waxa ay leeyihiin ardayda mar kale waxaan arkaynaa macallimada oo weydiinaysa ardayda su'aal George ayaa isku dayay laakiin macallimada intay si isma waqti ay ka jeedsanaysaa George-na waxa uu ogaanaya in macallimiinta iyo ardayda ay cunsuriyeenayaan intaa kadib ardayda waxay u soo baxayaan break qof kastana waxa uu cunaya cunto ay hooyadii u keentay laakiin George waxa uu ahaa mid kaligiis ka fadhiya mid kamid ah ardayda ayaa waxa uu George ku caayay inuu yahay faqiir George-na waa uu xanaaqaya waxaanu ku dhufanaya feer intaa kadibna macallimada ayaa imanaysa George-na waxa uu iskaga cararaya iskuulka dhowr sano kadib waxaan arkaynaa George oo weynaaday isaga iyo saaxiibkii waxay halkaas ku sugayeen inuu qof ka soo baxo baarka si qofkaas ay ugu dhigtaan gabar markii uu soo baxo asxaabta daadan gambar ila fahmin ciyaar football way la fahmayaan laakiin waxaan ka wada halkaas ay ku sugayeen intaa kadibna waxay arkayeen in qof uu ka soo baxay baarka ayagana way dabagelayaan waxayna qabanayaan qofka kadibna waxay bilaabeen inay xoog kaga qaataan waxa uu haysto laakiin waxay arkeen in uu booliis yahay oo waxa loo dhigay uu yahay dabin kadibna George iyo saaxiibkii waa iskaga cararayaan meesha isla markiiba waxa imanaya booliiska George-na waa uu cararaya waxaanu ku dhumanaya bulaacad intaa kadibna George waxa uu bilaabay inuu wajigiisa mariyo wasakh si ayga aanu u qaban isagana fikradiisa waa uu shaqaysa askartana meesha way iskaga tagayaan George markii uu guriga yimaaday waxa uu TV-ga ka arkaya meel uu qofka cuntadiisa ka helayo iyo dharkiisa halkaasna uu ku soo bandhigi karo talentigiisa kadibna George waxa uu imanaya hooyadii waxaan u sheegaya in halkaas uu doonayo hooyadiina waa ka aqbalaysaa waxaan u ogolaanaysaa in halkaas uu tago subaxa dambe George waxa uu aadaya meeshii uu rabay waxaana la siinaya dress uu meesha ku joogo intaa kadib George markuu qolka soo galo waxa uu arkaya in hooyadii ay u soo dhiibtay kabo George-na waa uu ku farxaya markii uu arkay in hooyadii ay u soo dhiibtay kabo cusub intaa kadib waxa la gaaray qadadii George-na waxa uu arkaya in kabii hooyadii ay u soo dhiibtay uu mid kale xiran yahay kadibna George waa uu xanaaqaya waxaanu ereyanaya midkii kabihiisa ka xaday intaa kadib isagana waa uu ka cararaya waxaanu ka gelayaa qol George-na markuu arkay in qolka uu xiran yahay waa uu jabinaya kadibna George waxa uu ku sigtay inuu ka tuuro daaqada macalinka ayaa imanaya waxaanu arkay in albaabka la jabiyay macalinkana waxa uu ka qabanaya midkii uu rabay George inuu ka tuuro daaqada kadibna macalinka waxa uu soo kaxaynaya George waxaanu eegaya faylashiisa waxaanu arkaya in George meelo badan laga soo eriyay macalinkana waxa uu sheegay in markaan jaaniskiisa u dambeeyay uu siin doono intaa kadibna macalinka waxa uu inoo sheegay in muuqaalka like saarto sidoo kale isaga waxa uu sheegay in talentigiisa uu yahay boxer maadaama George yahay qof dagaal badan oo markasta gacanta ka soo horeyso intaa kadib George waxa uu raali gelinaya macalinkiisa waxaan u sheegay in khaladkan mar labaad aanu soo noqonin macalinkana waxa uu keenaya meesha lagu feertamo George-na waxa uu la dagaalamaya qofkii ugu horeeyay laakiin George waa laga adkaanaya qof kastana waa ku qoslaya George-na waa uu xanaaqaya waxaanu buushka ka sijaraya feer dhammaantoodna waxay arkeen in buushka uu dhulka ku dhacay sidoo kale macalinka waxa uu ogaanaya in George uu noqon karo boxer weyn maadaama uu arkay in George uu leeyahay awood badan intaa kadib George waxa uu la hadlaya hooyadii waxaanu u sheegaya inuu bilaabay boxing hooyadiina way ku dhiirigelinaysaa waxayna u sheegaysaa inuu hore u socdo macalinkana waxa uu bilaabay in George uu tababar badan siiyo calashaan si uu hamigiisa u rumeeyo hal sano kadib waxaan arkaynaa George oo tababar badan soo qaatay sidoo kale waxa uu ka qaybgalaya tartan boxing George-na waxa uu bilaabay in markiisii ugu horeeyay uu ka qaybgalo tartan boxing George waxa uu la tartamayay nin cadaan ah qof kastana waxa uu ka daawanayay TV-ga George familkiisana waxay ka daawanayeen TV-ga qof kastana waxa uu ku kalsoonaa in George uu guuleysanayo in badan ay dagaalamayeen kadib George waxa uu ku guuleysanaya in uu ka adkaado familkiisana markay arkaan in George uu guuleystay dhammaantood waa ay ku farxayaan George-na waxa la guddoonsiinaya bilad dahab ah George-na waxa uu ka ruqaadaya calanka Mareykanka familkiisana markay arkaan waa ay la yaabayaan maalinkii xigay George oo ku xaragoonaya biladii dahabkeed ee la siiyay ayaa saaxiibkii u yeeraya waxaanu ku dhacayaa maxaa u qaadatay calanka Amerikaanka sidoo kale waxa uu sheegaya in Amerikaanka ay necab yihiin dadka madow intaa kadib George waxa uu ka murugoonaya arrinta uu sameeyay George-na waxa uu tagaya hooyadii waxaan u sheegay inuu iska dhaafi doono boxing-ka maadaama George aaminsan yahay in Amerikaanka ay cunsuriyeenayaan George hooyada waxa uu sheegaysaa in aanu iska dhaafin boxing-ka oo hore u socdo sidoo kale waxa uu sheegaysaa in maalin maalmaha kamid uu dhammaantood ku fiicnaan doono George-na waxa uu qaadanaya hadalka hooyadii waxaanu sii wadanaya boxing-kiisa maalinkii xigay George waxa uu ka soo degaya airport-ka intaa kadib airport-ka waxa uu ku arkaya gabadh aad u qurux badan intaa kadib waxa uu tagaya gabadha waxaanu isku dayayaa in uu lambarka ka qorto gabadhana waa u ogolaanaysaa waxaanu ka qoranayaa lambarka mar kale waxaan arkaynaa George iyo macalinkiisa macalinkana waxa uu sheegaya inuu ka qaybgeli doono tartan aad u weyn kaas oo kula tartami doono boxerka ugu weyn magaalada macalinkana waxa uu keenayaa macallimiin isaga ka sarreysa
si George ay u siiyaan tababar aad u badan maadaama la tartamay ninka magaalada ugu adag. Macallimiintana waxay bilaabeen in mid kasta inta uu garanayo uu tababaro. George-na Brias waxa uu ku mashquulsanaa Alina, gabadhaas oo markii hore soo jiidatay. Maalinka xigay George waxa uu ka qaybgalayaa tartanka, waxaanu maaraynaya in tartanka qaybihiisa hore uu ka soo gudbo. Intaa kadibna George waxa uu noqonayaa nin caan ah, laakiin asxaabta ogaada waxa uu hadhay finalkii u dambeeyay. Buruundiga ugu dambeeya la ciyaaray ninka waadka magaalada. Qof kastana waxa uu sugay ciyaarta isla ciyaari doonaan. Intaa kadib George waxa uu guursanayaa gabadhii uu jeclaa. Maalinka xigay George waxa uu lahaa tartankii u dambeeyay uu kaga qaybgalayay roundiga u dambeeya ama finalka. Waxaanu la tartamayay in lagu magacaabo Maxamed Cali, kaas oo ahaa nin caan ah. Qof kastana waxa uu aaminsanaa in Maxamed Cali uu guuleysanayo. Intaa kadib waxa bilaabmaya tartanka. Qof kastana waxa uu la jiray Maxamed Cali, laakiin George waxa uu ahaa mid xasuusan talooyinka ay siiyeen macallimiintiisa. Waxaanu maareeyay in tartanka qaybta koowaad uu ku guuleysto. Qof kastana waxa uu la yaabaya awoodda uu leeyahay George. Macallinkiisana waa mid ku farxaya markuu arkay in qaybta koowaad uu ku guuleystay. Intaa kadibna waxa bilaabmaya tartanka qaybtiisa labaad. George iyo Maxamed Calina waxay bilaabayeen in ay feertamaan. In badan ay feertamayeen kadib George waxa uu ka guuleysanayaa Maxamed Cali. Sidoo kale macallimiintiisa waa kuwa aad ugu farxaya markay arkeen in George uu guuleystay. Kadibna George waxa uu noqonayaa nin caan ah, sidoo kale waxa uu yeelanayaa lacag. Maalinka xiga George waxa uu TV-ga ka arkay in Maxamed Cali uu ku jeesteysay familkiisa, kaas oo ku tilmaamay familkiisa in ay yihiin kuwa faqiir ah. George-na waxa uu ka cadhoonaya hadalka uu leeyahay Maxamed Cali. Sidaa darteed waxa uu familkiisa soo dejiyay guri weyn oo qasri ah. Sidoo kale xaaskiisa waxay u sheegtay in ay u leedahay uur, isagana ma siinayo wax ahmiyad ah. Sidoo kale xaaskiisa waxa ogaanaysa in George isbedelay, oo markii hore sida uu ahaa iminka aanu ahayn. Saxaabta filimkeena aad ayuu u dheeryahay, sidaa darteed filimkan waxaan ka samayn doonaa qayb labaad. Waxaana iga xumaanin asxaabtayda, oo waxa ogaataan in filimka uu baahan yahay marka hore inaad fahanto, marka labaadna aad script ka qorato, marka saddexaadna aad codayso, marka afraadna uu u baahan yahay in la edit gareeyo. Anigana asxaabta waxaan ahay arday waxbarta, maalin kastana muuqaal waa idiin soo dhigaa si asxaabta igu xidhan ayna iga caajisin. Asxaabta muuqaalkan qaybtiisa labaad waan idinku soo dhaqsan doonaa. Idinkana asxaabta muuqaalka like saara si muuqaalka dad badan ugu gaadho, adigana aad qaybta labaad ula socotid. Waa inoo muuqaalkan muuqaalka xiga.